wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Madaxweye Farmajo ayaa maanta dib u habeyn ballaaran loogu sameeyay qaar ka mid ah hay'adaha amniga dalka iyo agaasinka guud ee madaxtooyada qaranka Soomaaliya. wareegtadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Madaxweye Farmajo ayaa xilka qaadis loogu sameeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya halka sidoo kale isla wareegtada lagu magacaabay mas'uuliyiin cusub. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya ayaa wareegtadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Madaxweye Farmajo ka akhriyay warbaahinta qaranka Soomaaliya. Bismillahirrahmanirrahiim. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed ayaa maanta waxa uu dib u habeyn ku sameeyay qaar ka mid ah hay'adaha amniga iyo maamulka madaxtooyada qaranka. wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa magacaabis iyo xilka qaadis lagu sameeyay mas'uuliyiinta magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin. Dr. Aamine Saciid Cali waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka. Sareegaas Daahir Aadan Cilmi ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. gaashaanle dhexe Odawaa Yuusuf Raage oo loo dalacsiiyay sareeyo guuto ayaa loo magacaabay inuu noqdo ammaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sareeyo guuto Maxamed Cabdalla waxaa laga qaaday xilkii ku-xigeenimada agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. gaashaanle sare Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac waxaa laga qaaday xilkii ku-xigeenimada agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha 8 2018 waxa uu madaxweynuhu u magacaabay Fahad Yaasiin inuu noqdo ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. sareeyo guuto Saciid Axmed Kediya ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. gaashaanle sare Zakiya Axmed Xuseen oo loo dalacsiiyay sareeyo guuto ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. gaashaanle sare Xasan Nuur Colijoog ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed. Mustafa Xasan Cabdi, wararka TV-ga STN, magaalada Muqdisho.